السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدل مالي وناكسن صدق كلا كلنتي وناكسن كل سنة دواد برامج كنا ورجسر بوجع عن صنع وانا سمينا يا قدام بدي سبورتس ودم ببرز كنت بدل حكي هاللايان كل مدى كواب كمحلي عاول عيار أيضا حالة كلا أتلتيك مدريد وعذراء يدين سما فينال كوب بدل رأي وصبحين لحدمات كودم بس كوب بدل رأي كل شنقول كوبانيان جتافي حالة كباشالين ميلان الرامع عاوز كوادن حل معنا كوساساو عيار توي بدن وفسح ديل لانديجي مسوق انتو أفرناي صحيح وكان عاوي عيار كرو كوحد الروسنيري كلن كرامي وجانا لجهد لايا أرسنال كلن وحاوي اللي مشى صوبته حلوان لبقول كل هذا كوحد نيوكاسل اللي كسو كابتن كرباي كاب كسن جيمس باغال لو عيارا ريال مدريد waxay taagan SOS waxaan ku jirnaa xaalad gurmad degdeg ah u baahan sababta dhammaan difaacyada ka dhaawacmeen caawana kooxda dalray kooxda Leganes ay wajahayaan sheekooyinka kooban ee suuqa arimaha xantana barnaamijkeena ka marno fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar aqyaarta joogtada nagu xiran muuqaalka noo la gareeyo marka hore waxaan ku bilaabaynaa qodob ka baxsan Beberiska ee gudoonka Premier League Ingiriiska dabcan waxay shaaca ka qaadeen 13 qalad oo faar ka dhacay kaas oo costly ah oo waliba qaladaadkaas waxay sababay macallimiinta qaarkood inay ku waayaan shaqadooda xilli ciyaareedkan ayaa laga hadlayaa oo hadda qaybiis dambe la sii gudagalayo qaladka ugu caansan waa midkii October uu ku baxay Tenag ciyaar kooxda Man United West Ham United la ciyaaran Delikhti oo rigoore aan jirin laga dhigay natiijadaas waxay keentay Tenag shaqadiisa inuu ku waayo marka hadda inay gudiga garsoorka faar iyo Premier League la gelin bixiyaan micno badan ma sameynayso 13 qalad oo waadax ah isla qarta la ku xalli qaladaadkaas waxaan ka baran karnaa mustaqbalkiina ku dabaqno faar inay samar kale qalad noocaas oo kala ka dhicin bal aan isla eegno qaladaadkii ugu waaweyn highlights ka qaadanayaan oo ay ka mid tahay dabcan Tenag markuu waxa maqla madax inuu xanuunayo natiijooyinkii shaqadiisa uu ku waayay ka mid tahay waxa la soo qaadan karaa oo kaleeto 25 Agosto kulan dhaxmaray Bournemouth iyo sidoo kale Newcastle oo tira kubad gacanta kaga dhacday oo dhamaadkii ciyaarta uu shabaq gaarsiiyay waxa la qalad ahayd decision-ka faarna ciyaartaas ku qaldameen West Ham United iyo Man United kulankii dhaxmaray 27 October oo United laba gool hal looga badiyay waxa la leeyahay dabcan qaladkii laga dhigay Delikhti wax ka jira malahan garsoor David Coutan qaladaadkii uu galay kamid intaan koor ciyaaraha laga ganaxay waa ka warqabnaa sidoo kale waxa la soo qaadan karaa Brentford Everton ciyaar eber ku dhamaatay Norgan Casaan la siiyay ayadana mistake kale ahayd Milankovic Savic goals allowed goal shabaqa gaarsiin laga diiday kulan Nottingham Forest 3-2 ay kaga badiyeen Milankovic ninka lagu magacaabo difaaca Southampton gool laga diiday waa highlights ku waaweyn laakiin qaladaadkan waxa la Premier League way soo laabanayaan inkastoo gudoonka ilaa waxaan u soo bandhigaynaa qaladaadkan in dadka ogaadaan in mistake uu dhici karo qaladaadkan aan wax ka baran si aan berito wax u saxno saaxiibada qiimaha badan waxa la faar xitaa horyaalka marmarka qaar nuxurka ka qaadaysa sababta waxa la 239 kulan xilli ciyaareedkan Premier League la ciyaaray 70 jeer waxa loo joojiyay faar darteed oo ciyaarta socod intervention ku sameysay taas xitaa waxa la xiisaha ciyaaraha ka qaadaysa waxay ka dhigan tahay leeyahay markii la eego saddex ciyaar kasta horyaalka Premier League caadi kuma dhamaadaan waxay ku dhamaadaan iyadoo faar ay soo fargelinayso marka waxa la faar xitaa hal keena qaab wax looga qaban karo laakiin fargelintan faraha badan horyaalka ay ku hayso xiisa badan malahan qaladaadka ugu waaweyn waxa kamid midkii Tenag uu ku baxay marka sanad kasta la soo bandhigaa sanad kasta markii la soo bandhigana qaladaadka faar waxa lagu xasuustaa sanadka ugu darneed waana sanadkan dabcan oo Tenag xilli ciyaareedkan shaqadiisa uu ku waayay sheekooyin kale Beberiska Ingiriiska saar markii aan saafirin waxa kamid ah Gareth Bale ahay Arteta oo dhahay xanuunan dareema suuq inaan dabcan saxiix haddana saasaytay wuxuu leeyahay ciyaartooy tayo wanaagsan suuqa waa ka weynay dhinaca kalena wuxuu leeyahay kuwa aan haystan kalsooni ku qaba Kai Havertz oo kaleeto Ethan Nwaneri Martinelli Trossard kulli wuxuu leeyahay ciyaartooy dhanka weerarka naga caawin karaan inkastoo uu dhamay mabda'iyeen waxa fiican suuq intuu furnaay inaan ciyaartooy qaadan haddana taas waa ka niga jabnay saasaytay wuxuu leeyahay kooxda lacag la'aan mahaynine ciyaaryahankii ku haboona ayaan heli waanay warbaahinta qaarkood Ingiriiska waxay leeyihiin Arteta xitaa Karim Benzema loo bandhigay Alvaro Morata qaadan waay Ole Watkins ciyaaryahan badan Benjamin Sesko baadi goobi uu sameeyay uu suura gali waasa laakiin macalinka madaxu dhulka ka cishanaya caawana kooxda Newcastle hayso Carabao Cup oo laga ka soo laabtay labada gool lagu leeyahay waxa kale Beberiska muuqda ninkii Trent Alexander-Arnold oo dhaawac soo gaaray Liverpool nasiibanaag waxay dhaawaciisa halis badan ma ahan kaliya waxa la sheegay koobka maxalliga ka nasan doona Khamiista kulanka Tottenham Hotspur ma ciyaarayo iyo FA Cup-ka weekend-ga la ciyaarayo kadib waxay u badan tahay inuu soo laaban doono kulamada Merseyside derbiga Everton la ciyaarayo iyo kulanka Manchester City ee sugaysa iyo Newcastle iyo qaybaha bishan Febraayo waxa la Arnold kooxda uu ku soo laaban doonaa qodobada gossipkii sheekooyin kale Beberiska Ingiriiska soo daabacaan eegno iyadoo qodobka ugu weyn ee gossipka saaxiibayaal uu qaadanayo Alejandro Garnacho iyo Kobe Mano labadaba waxa la Man United mar kale kaashiisa xagaaga hadii lacag fiican ku helaan sida The Guardian ee daabacay United qorsheedu wuxuu labadan ciyaartooy inay faa'iido ka sameeyaan sababtoo ee Garnacho iyo Kobe Mano lacag kasta United ku gado waxa loo aqoonsanaa faa'iido toos ah maadaama ay home ground players ciyaartooyda kooxdan ay soo barbaarisay sida caadiga kooxda ciyaartooyda soo barbaarisay
markay iibiso lacagtaas faa'iida lagu aqoonsadaa qasnadeeda ku buuxsanaysaa. dhinaca kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Matheus Cunha oo qandaraas kordhin sameeyay 20 jirkan haddana kooxda Wolves wuxuu ka rabaa xagaag in loo fududeeyo qaabkii uu ku bixi lahay, taasoo Wolves ka caawin doonta bixitaankiisa lacag adag inay ka sameeyaan sida Football Insider ee daabacayso. dhinaca kale waxaa leeyahay kooxda Chelsea Dylan Deg waxay isku dayeen qaadashada ninka lagu magacaabo Murillo oo 22 jir difaac kaga ciyaara kooxda Nottingham Forest, laakiin Forest dalabkan way iska diideen sida Telegraph ee daabacayso. dhinaca kale waxaa leeyahay kooxda Barcelona 8.5 milyan oo pound ama 10 milyan oo euro ay waayeen markii Nico Gonzalez uu ku biiray kooxda Man City. FC Porto ka iibiyeen sababtoo waxaa leeyahay Barcelona ciyaaraankan waxay dib ugu ceshan kareen 2 milyan iyo bar lacagta pound markay ku ceshtaan kadib Man City hadii ka iibin lahaayeen 60 milyan oo euro ayaa toos qasnadeeda ugu soo gali lahayd, laakiin taas ma aysan dhicin oo hadda 13 milyan oo euro kaliya ka heleen nidaamka ciyaarahankan lagu fasaxay sida ESPN ee daabacayso. dhinaca kale qodobada ka kooban soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United ciyaarankooda weerar kaga ciyaari jiray Marcus Rashford hadda amaah ku aaday dhankaasi Aston Villa. Dylan Deg wuxuu iska diiday dalab kaga imaaday qaar kamid ah kooxaha Turkiga sida shabakada Min ee daabacayso. dhinaca kale Rashford waxaa la xayeysiinta shirkadda NAG oo kula jira 100% hoos u dhacday 1 milyan iyo xoogaa ayuu sanadkii qaadan jiray, laakiin hadda waxaa lacag aad u yar ku shaqeynaa sababtoo ah Man United uu ka tagay Aston Villa ku biiray. Aston Villa waxaa la kategoriga oo ka hooseeya Man United ku jirta dhanka xayeysiinta qiimaha lagu bixiyo sida shabakada Daily Mail ee daabacayso. dhinaca kale dadka qaarkood ay aaminsan in garoonka Old Trafford uu diyaar noqon doono 2032 markii ugu sokeyso sida hadda Daily Mail ee daabacayso markii dhismaha la geliyo garoonka la burburiyo almost waxaa la 7 sano uu qaadan doono dhameystirkiisa. qodobada ka kooban waxaa qayb ka soo qaadan karnaa kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa qorsheynaysa inay garoon cusub diyaarsato oo ay ka guurto garoonka hadda ay ku ciyaarto St James Park, inkastoo taageerayaasha taas aysan jeclaysanin sababtoo St James Park waxay u arkaan dhaxal taariikhi ah sida Telegraph ee daabacayso. dhinaca kale Man United waxay iska diideen Tyrone Malacia inay amaah ku siiyaan kooxda Benfica, laakiin hadda waxaa la ugu dambeyntii dhankaasi wuxuu aaday kooxda PSV Eindhoven. United waxay ku qanci waayeen dalabka u soo bandhigtay naadiga PSV sida warbaahinta ee daabacayso. markaan dhankaasi iyo gudaha Spain tagayna Atletico Madrid waa high flying Copa del Rey semifinal u soo baxeen Getafe qabteen 5 gool ku dhufteen Giovanni Simone 2 gool ku toortay xidigii dhama waa kifaaxeen. Madrid derby kooxdan waxay diyaar u yihiin weekendiga ayagoo jawi fiican ku jira marka Diego Simeone kooxiisa guusha ay gaartay. Real Madrid oo gurmad degdeg u baahan difaacida dhaawacyada ay qabaan kiiska dooda garsoorayaasha arrimahaas Spain ka jiraan bal aan soo qaadano. shabakada caanka ee Marca waxay leeyahay Atletico Madrid oo si qurux badan ugu soo baxday semifinal kadib markii xaalad taageerayaashooda maqsuud ay noqdeen home match ee Getafe qabteen 5 gool ku dhufteen. Giovanni Simone 2 gool shabaqa gaarsiiyay. Lino Angel Correa badal ku soo galay shabaqa gaaray. Sorlotna sidoo kale shabaqa ayuu gaaray. Simone iyo kooxdiisa ma sugan karaan hadda inay sabdiga la ciyaaraan kooxda Real Madrid kulan bilaaban doono 11 habeenimo xilliga Geeska Afrika. labadan kooxood farqiga u dhaxeeyna waa hal dhibic oo kaliya kala reebtay sabdiga u tahay marka Simone iyo kooxdiisa. 1965 ugu dambeysay kulan ka tirsan Copa del Rey oo Atletico Madrid 5 gool iyo ka badan ay ku badiyaan, markaasna 8 gool hal waxay kaga badiyeen daawadayaal kooxda Real Sociedad sida shabakada Opta Jos ee daabacayso. sidoo kale tan ee qodobada ka kooban waxaa qayb ka xogaha kulankan laga daabacay Atletico guushii lixaad ee gaareen. kooxdan waxay haystaan ciyaartooy markay badal ku soo galaan aan la iska celin karin. ciyaartooyda dhammaan tartamada kala duwan ee Liga Spain ugu goolasha badan badal ku soo galeen waa Atletico Madrid oo ciyaaraan. Julian Alvarez 6 gool oo shabaqa gaarsiiyay asagoo badal ku soo galay. Sorloth iyo Angel Correa waa lamid 6 gool oo shabaqa gaarsiiyay ayagoo badal ku soo galay. marka Simone waxaa la hubkiisa koowaad hubkiisa labaad waa isku mid sida Marca ay soo daabacayaan. sidoo kale shabakada Marca geeska waxay kaga soo sawireen Vinicius iyo Real Madrid waxay leeyihiin situation emergency, xaaladda emergency waa gurmad degdeg ah Madrid u baahin ciyaartooy ma haystaan, xaalka aad u sii xumaanaya. haddii aan fiirino shabakada caanka ee Sporti waxay ku afarkasiyeen Aruqo oo sheegay markastaba inuu jeclaasiyo joogista Barcelona haddana uu ku faraxsan yahay kooxdiisa. daawadayaal xaaladii adkeed dhaqaale xumada ee ka baxday qandaraas kordhinta dheer uu sameeyay hogaamiyaha kooxda uu sii ahaan doono mustaqbal kooxda wuxuu leeyahay gacan safe ayuu ku jiraa oo ka dhawaajiyay Aruqo. dhinaca kale haddii aan fiirino shabakada caanka ee lagu magacaabo Sporti ayagana waxay soo qaateen Mundo Deportivo waxay soo qaateen foulkii ama qaladaadkii xilli ciyaareedkan la Liga Spain dhacayo. Real Madrid u jawaabeen waxay dhaheen idinka waxa ku haysatiin garsoorka qaladkii Mbappe laga galay takalkii lagu dhuftay. habeena badan waxaa jirtay leen kooxdeena Barcelona qaladaad laga galay iyo sida guud Real Spain oo qaladaad laga galay. marka qoraalkii Madrid ay ku dhagan yihiin Real waxay u hadleen in kaliya garsoorayaasha counter ay ku yihiin, laakiin waxay leeyihiin Mundo Deportivo qaladaad badan jiray inta miiska la wada imaado si positive loo hadlo. statementigii
Madrid ay ku dhagan yihiin oo ceeb badan keentay taasoo xitaa hadda waxa la garsoorayaasha waxa laga yaabaa in ay dabcan gadood sameeyaan weekendiga horyaalka Spain aan la ciyaarin kulamada ee baqdan oo la waayaba gabi ahaanba garsoore dhexdhexaadiyo kulamada horyaalka Spain maadaama garsoorayaasha Madrid ay ku tilmaamtay kuwo tuugo ah oo lacaga qaataan koob fara badan dhaafsiiyeen shabakada ay soo xillayeen xaaladda Madrid faraha ka baxday emergency gurmad degdeg ah kooxdan u baahantahay sababta dhammaan difaacyadu ka dhac Rudiger iyo Alaba iyo sidoo kale markii la fiirsho xidigihii Militao hore u dhaawacnay afar center back markay ugu yartaa kooxda ka dhaawacan sadartay markii Ancelotti hal Asensio kaliya haysta iyo wiil lagu magacaabo Ramon labadaas oo difaac yarsiin doona marka kulanka Leganes Madrid waxa laga yaabaa in caawa difaac xumo awgeed tartanka kaga haran wax kasta macquul ah balse aan sugan caawa iyo Carlitos oo isku furdaamin karo hadduu xataa Leganes oo ka gudbo kadib Atletico Madrid Man City sugaan yaa difaac ku ciyaara taas problemka ugu weyn ah dhankaas iyo Talyaaniga markii aan tagnay saaxiibayaal kooxda Rossoneri ciwaanada qaadanaysa ciyaartooy fara badan way fasaxeen kuwa fara badan way keeneen Dylan Dhiga marka dhanka documentationka diiwaangelinta ayaa la isku haystaa qaarkood ma ciyaari karaan kulanka Roma caaw ee wajahayaan hadda waxa la Asensio markaas ninka aan lagu magacaabo macni Conceição akhbaarta fiican oo waxay tahay dhanka diiwaangelinta ciyaartooyda waa loo ogolaaday laakiin fitnesska la isku haystaa nin hal maalin laba maalin kula joogo sidoo hore kaga ciyaari karaa waa la isweydiinaya Roma caaw Milan wajahayaan jaraa'idka caanka ee Corriere dello Sport waxay coverka siiyeen saxiix cusub ee kooxda Milan Jimenez oo sheegay inuu diyaar yahay wuxuu leeyahay I am a devil ama I am the viola waxaan uu leeyahay ciyaaraha Milan dhigeeda ku shaqeynayo tonight wuxuu rabaa xidigan shaxda kuwaad inuu soo galo maadaama Morata uu baxay inkastoo laga yaabo bedel inuu ku soo galo oo Abraham lagu bilaabo dhinaca kale tan Inter Milan waxa uu soo laabanay Hakan Calhanoglu ciyaaraha Fiorentina ee wajahayna kulamo kale oo xasaasi ah asiga ka soo muuqan doona marka Hakan oo dhaawac ka soo laabtay 100% fit ah waxay ka dhigan tahay Interna waa dhameystirnaan doontaa dhinaca kale waxay Gazzetta dello Sport ilaa markii la fiiriyo Kyle Walker weekendiga uu ciyaar asoo kooxda ku cusbaa waa diyaar haddana waxa la kulan koob Italia caaw uu ciyaari doonaa sidoo kale Rossoneri waxa la Jimenez uu ciyaari karo Joao Felix oo xitaa kooxda Chelsea ka yimaada asna uu ciyaari karaa inkastoo fitnesskiisa 100% uusan ahayn waxa la marka macallin Conceição ciyaartooyda faraha badan oo fasaxay iyo kuwa imaadeen dheelitirkooda waxay ku taallay xogaa mid riski ah ama halisteed uu kala kulmi karo haddii aan fiirino jaraa'idka caanka ee Corriere dello Sport waxay leeyihiin Vlahovic iska ilow inaa mar ahaan jirto hogaamiyaha kooxda hadda wuxuu ku nool yahay hooska Rondon Colomwani oo Janaayo kooxda imaada saameynta qaatay Vlahovic waxa laga aqbalo inuu hadda yahay dooqa labaad ee kooxda hogaamiyaha kooxda waa Muani inkastoo loo soo jeediyay macalinka lagu magacaabo Morata inuu isla ciyaarsiyo labadan ciyaartooy ma suuragelis marka waxa la Vlahovic waa inuu strong noqdaa suuqa uu xiran yahay oo uu noqdaa ciyaaryahan aqbalo in hogaaminta kooxda lagala wareego markaas sigana culeys ka dagayo kadibna waxa la Juventus uu caawin karaa horumarkiisa ciyaaradna uu soo ceshan karaa waxay sidoo kale Corriere dello Sport ka hadleen Dybala oo diyaar u ah inuu dhibaato u geysto kooxda kubadda cagta AC Milan kulanka Milan iyo Roma caawa dhaxmaray dhinaca kale tan kooxda Bologna la yaabay sameeyeen kadib markii banaanka ay dhigan Atlanta qarnigan 12aad waxay u soo baxeen semifinal ee kooxdan soo gaareen kooxda Rossoneri waxa la marka seasonka xilli ciyaareedkoodna la yaabay sameeyeen top 4 ay soo gaareen haddana Coppa Italia u soo gudbaan qaybihiisa dambana wax weyn ay kaga dhigan tahay naadiga Bologna Tutti Sportiva aan eegno ayagana waxay soo qaateen saaxiibayaal Karim Adeyemi oo qorshaha Juventus u yahay inay xagaaga soo qaataan Antonio Conte ciyaaryahankan ku fashilmay qaadashadiisa bishii Janaayo hadda waxa la marka marwada duqda waxay diyaarinaysaa samarka inay soo qaataan ciyaaryahankan Jarmalka ee garbaha ka duulo sidoo kale Tutti Sportiva waxay ka hadleen ciyaaryahanka lagu magacaabo Jimenez iyo sida uu diyaar u yahay kooxda Rossoneri caawinteeda nambarka 7 uu qaatay caawan wuxuu rabaa shaxda kuwaad inuu soo galo si uu kooxdiisa u caawiyo sheekooyinkaas ugu muhiimsan marka oo jaraa'idada Talyaaniga saarana soo qaadanayna saaxiibayaal ugu dambeyntii aan isla eegno waxa jira hadii aan eegno jaraa'idka caanka ee L'Equipe ayagana waxay soo qaateen odaga CR7 warkii uu dabcan wareysiga u baxshay iyo sidoo u sheegay inuu yahay kan ugu saameynta badan kubadda cagta xitaa Ronaldo wuxuu ka dhawaajiyay daawadayaal in hadii uu jiro ciyaaryahan la tartami kara asigu uu yahay Messi ee soo wada xifaaltameen laakiin hadii la dhaho is the best wuxuu leeyahay aniga ay taas iswarsi malahan marka warkii shalay iyo wareysiga uu baxshay ayay wali dabcan L'Equipe tafaasiil ka bixinayaan coverkan CR7 siiyeen ayadoo la xasuustay 2016 in koobkii Euro ku qaada gudaha Faransiiska wuxuu leeyahay ayadana waa meel khaas oo ninka odaga ee ka dhawaajiyay hadii aan eegno caawa waxa jiraan kulamo kala duwan oo la ciyaari doono koobabka maxalliga u badan Copa del Rey Leganes Real Madrid waa 12 habeenimo ama caawa 5 saac habeenimo Arsenal Newcastle lugta labaad semifinalka la ciyaaran kara Baycab waa isla 5 saac habeenimo xilliga geeska Afrika AC Milan ee Roma ayagana Copa del Rey quarter finalkiisa waa 5 saac habeenimo xilliga geeska Afrika DFB Pokal Cup markii aan filan Bayer Leverkusen waxa iska hor imaanay FC Cologne kulan caawa bilaaban doona 10:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika Alonso iyo kooxdiisa koobkan difaacanayaan Stuttgart xal waxay u soo baxeen semifinalka kadib markii hal gool eber ay kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Augsburg aqyaariga guud ahaan barnaamijkan intaas nooga egyahay waa inoo kulan dambe haduu alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.